isaga ayaa macbudka ka baxay oo intuu tegayey ayay xertiisii u timid inay tusaan dhismaha macbudka laakiin wuu u jawaabay oo wuxuu ku yidhi miyaydnaan waxyaalahan oo dhan arkaynin runtii waxaan idinku leeyahay halkan lagu duldayn maayo dhagax kale dushiis oo aan la dumin doonin oo goortuu buur saytuun fadhiistay xertii ayaa keli ahaan ugu timid oo waxay ku yidhaahdeen noo sheeg goormay waxyaalahan lahaan doonaan oo calaamadda imaatinkaada iyo dhamaadka waqtiga dunidu maxay ahaan doontaa ciise ayaa u jawaabay oo wuxuu ku yidhi iska eega yaa laydin khiyaanayn waayo qaar badan ayaa magacayga ku iman doona oo waxay odhan doonaan anigu waxaan ahay masiixa oo qaar badan ayay khiyaanayn doonaan oo waxaad maqli doontaan dagaalo hadalhayntood iska jira hana baqanina waayo waxaasu waa inay dhacaan laakiin dhamaadku weli weeye waayo quruun bay ku kici doontaa boqortooyo oo waxaa meelo kala duwan ka dhici doona abaaro iyo dhulgariir waxaan oo dhammu waa bilowga hoogagga markaasaa dhib laydiin geysan doonaa waana laydin dili doonaa oo magacayga aawadiis ayaa quruumaha oo dhan idiin nibcaan doonaan markaas qaar badan ayaa xumaan doona midba mid buu gacangelin doonaa wayna isnibcaan doonaan waxaa kici doona nebiyo badan oo been ah oo qaar badan ayay khiyaanayn doonaan dembigu waa badnaan doonaa taa aawadeed qaar badan jaceylkoodu waa yaraan doonaa laakiin kii adkaysta ilaa ugu dambaysta kaasaa badbaadi doona oo injiilkan boqortooyada ayaa dunida oo dhan lagu wacdiyi doonaa inuu marag u noqdo quruumaha oo dhan dabadeedna ugu dambaysta ayaa imaan doonta haddaba goortaad aragtaan waxa baas oo halaynta ah ee lagaga hadlay nebi daaniyeel oo taagan meesha quduuska ah kii akhriyaa ha garto markaas kuwa yuhuudiya jooga buuraha u carareen kii guri fuushanuna yaanu u soo degin in wixii gurigiisa ku jira soo qaato kii beerta joogaana yaanu dib ugu noqon inuu dharkiisa soo qaato laakiin waa u hoog kuwa uurka leh iyo kuwa wakhtigaas ilmoo nuujinaya barya inaan cararkiinu noqon wakhtiga qabowga ama sabtida waayo markaas waxaa jiri doona dhib weyn sida mid aan jirin tan iyo dunida bilowgeedii ilaa hadda mana jiri doonto weligii oo haddaan wakhtigaas la gaabin ninna ma uu badbaadiyeen laakiin kuwa la doortay aawadood ayaa wakhtigaas loo gaabin doonaa markaas haddii laydinku yidhaahdo waa kan masiixa ama waa kaas ha rumaysanina waayo waxaa kici doona masiixyo been ah iyo nebiyo been ah oo waxay samayn doonaan calaamooyin waaweyn iyo yaabab si ay xataa kuwa la doortay u khiyaaneeyaan hadday u suurtowdo bal eega horaan idinku sheegaye haddaba hadday idinku yidhaahdaan bal eega wuxuu joogaa cidlada ha u bixina bal eega wuxuu joogaa qolalka qarsoon ha rumaysanina waayo sida ilaacu bari uga yimaado oo u ifiyo galbeed sidaas oo kale ayaa imaatinka wiilka aadanahu ahaan doonaa meel alla meeshii bakhtigu yaal halkaas ayaa gorgoraduna isugu ururi doonaa laakiin dhibta wakhtigaas dabadeed kolkiiba qoraxdu waa madoobaan doontaa dayaxuna ma nuuri doono xidiguhuna cirka waa ka soo dhici doonaan xoogagga cirkana waa la gariirin doonaa markaasaa waxaa cirka ka soo muuqan doona calaamadda wiilka aadanaha markaas ayaa qolooyinka dhulka oo dhammu
arki doonaan wiilka aadanaha oo daruuraha cirka ku imanaya isagoo leh xoog iyo ammaan weyn oo wuxuu soo diri doonaa malaa'igihiisa oo wata buun weyn oo kuwuu doortay ayay ka soo ururin doonaan afarta jahood cirka meesha ugu fog ilaa meesheeda kale haddeer geedka bardaha ah masaal ka garta intii laantiisu curdun tahay oo caleemo bixinayso waxaad garanaysaan inuu roobku dhow yahay idinkuna sidaas oo kale goortaad waxaan oo dhan aragtaan garta inuu dhow yahay oo albaabada ag joogo runtii waxaan idinku leeyahay qarnigaanu ma idlaan doono intaanay waxaan oo dhan dhicin cirka iyo dhulku waa idlaan doonaan laakiinse ereyadaydu ma idlaan doonaan laakiin maalintaas iyo saacaddaas ninna waxba kama oga malaa'igaha jannada iyo wiilkan toona midna ma oga aabbahii keliya maahe sida waqtigii nuux ahaa sidaas oo kale ayaa imaatinka wiilka aadanuhu ahaan doonaa waayo siday wax u cunaayeen oo wax u cabbaayeen oo u guursanaayeen oo loogu guurinayay maalmihii daadka hoostiisa ilaa maalintii nuux doonida galay wayna garan waayeen ilaa daadkii yimid oo kulligood wada qaaday sidaas oo kale ayaa imaatinka wiilka aadanahu ahaan doonaa markaas laba nin ayaa beerta ku jiri doona mid waa la qaadi doonaa midna waa laga tegi doonaa laba naagood ayaa dhagax wax ku shiidi doonaa mid waa la qaadi doonaa midna waa laga tegi doonaa haddaba soo jeeda waayo ma aad ogidin maalinta rabbigiinu imaanayo laakiin tan ogaada odayga reerku hadduu ogaan lahaa wakhtiga tuugu imaanayo wuu soo jeedi lahaa oo ma uu daayin in gurigiisa la jebiyo sidaa darteed idinkuna diyaar ahaada waayo saacad aydnaan u malaynaynin ayaa wiilka aadanahu imaanayaa haddaba yuu yahay addoonka aaminka ah oo caqliga leh kan sayidkiisu dadka gurigiisa u salaysiiyey inuu cuntada siiyo wakhtigeeda waxaa barakaysan addoonkaas kan sayidkiisu goortuu yimaado wuu helayo isagoo sidaas samaynaya runtii waxaan idinku leeyahay wuxuu leeyahay oo dhan ayuu ka salaysiin doonaa isaga laakiin haddii addoonkaas sharka leh qalbigiisa ka yidhaahdo sayidkiigu waa raagay oo uu bilaabo inuu garaaco kuwii la shaqayn jiray oo uu wax la cuno oo wax la cabbo kuwa sakhraanka ah addoonkaas sayidkiisu wuxuu imaan doonaa maalin aanu jirayn iyo saacad aanu ogayn oo waa kala jeexi doonaa oo wuxuu ka dhigi doonaa mid qayb la hela laba wajiilayaasha halkaa waxaa jiri doonta baroor iyo ilko jiriqsi